maanta waxa dhacay waxaan fiicnayn wax laga leexo waxaan ka gudubnay yaa maanta dhacday askarteennii aan u tababarnay inay la dagaalamaan cadowga askarteennii wanaagsanayd aan u tababarnay inay u naxariistaan shacabkooda iyo dadkooda askarteennii ahayd inay kor u qaadaan ganacsatadooda ay ilaaliyaan sharafka dalkooda iyo dadkooda maanta nin ka mid ah waxa weeye waa badan yihiin ciidankeennu aad bay badan yihiin dad badan aad u badan weeye hal iyo laba waa laga helaa oo aan wanaagsanayn laakiin boqolkiiba 99 ciidamadeennu dhufayskay ku jiraan dagaalkay ku jiraan dhaxantay taagan yihiin jihaadkay taagan yihiin shacabkooda ilaaliyaan shacabkooda difaacaan allah u naxariisto labadii wiil maanta naga dhintay oo gacanteennii ku baxay oo ay ahayd inaan difaacno oo aan ilaalin noloshooda ilaaha nolol ilaaliyeen waxaan u tacsiyeynayaa eheladoodii iyo caa'iladoodii iyo faamilkoodii yaan u tacsiyeynayaa ilaahay iyagana jannadiisii iyo naxariistiisii ilaahay ha siiyo laakiin hal mid in la xaqiijiyaa loo baahan yahay wax kastoo dhaca dowlad baa leedihiin dowlad yaa doorateen annagu maxoog baan ku nimid annagu rabitaankiinaan ku nimid doorashaan ku nimid dalku waa dimuqraadiyad qofkii wax tabanaya ma aha cadaaladda iyo sharciga inuu gacantiis ku qaato ma aha ma aha inuu hantida shacabka soomaaliyeed burburiyo ma aha inuu nabadgeliyo xumo iyo nidaam xumo u horseeda ma aha in cadowga aan la dagaalayno oo argagixisada ah inuu gacan siiyo ma aha annagu hal cadow aan leenahay oo maalin walba shacabkeenna laaya oo aan cidna u abiyeelin waa shabaab cadowgaas inay ku soo dhex dhuuntaan dad fiifiican dhalinyaro ah oo ay hantidii dadka ay burburiyaan oo magac xumo ay na siiyaan oo ay naga dhigaan ay ka dhigaan askarta soomaaliyeed ciidanka qalabka sida soomaaliyeed dad xun kulli inay ka wada dhigaan oo ay abuuraan xasilooni darro ay garab u noqdaan argagixisada aanan cidna u naxaynin ka yeeli mayno ninkii ciidana oo sharcigaan ilaalin oo nidaamkaan ilaalin oo aan ilaalin xuquuqda shacabka maxaan ku raahdaa loo sameeyey aan ilaalin sharciguu hortegi wuxuu shaqaystuuna leeyahay meel kasta uu galo qofkaasi waa soo qabanaynaa oo ilaah hortiisa ah meeluu ku dhinto heli maayo meeluu galo heli maayo saasay tahay dhowr qof oo qaswadayaal ah ma aha inay magaxumo siiyaan askarta ma aha inay magaxumo siiyaan dowladnimada soomaaliyeed oo intay soo baxaan oo jidad ka qaadaan oo taayaro gubaan taayaradu macnaheedu waxay tahay waxaa joogta dowlad tayrani ah oo kaligiistali ah annagu manihin kaligiistali manihin rabitaankiinaan ku nimid markaan imaanayna saad noo soo dhawayseen waa ogeedeen markii nala doorteen waana taageerteen haddana ummadda soomaaliyeed waana taageersan yihiin maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed waana taageersan yihiin maxaa yeelay dowladdan dowlad fiican weeye aan madaxweynaha ka ahay dowlad nadiifa weeye dowlad ammaanada ilaalisa weeye aan tuuga ahayn dowlad cadaalad ku dadaasho waaye dowlad aan qabyaalad iyo qabiil aqoon weeye dal burbursan muddo 30 sano ah yaan ka shaqaynaynaa inaan sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celinno 4 qof iyo 10 qof iyo 20 qof oo dano shakhsi wata oo argagixisada ay ku soo dhuumanayaan magac naga hadleen maayaan gacan biras ka qabanaynaa ha u dul qaadanina hana yeelina in la ku soo dhuunto cadawga waa la dagaalaynaa bannaanka ciidamada qalabka sida ay kula dagaalamayaan goobo iyo aayaan ka qabsanay
waana siyeeriyeennaa waana ku daba jirnaa ma aha intay na soo dabamaraan oo dadka isku dhex qariyaan oo ay ka faa'iidaystaan arrintaan oo kale ma yeelayno dowladnimadeena dib loo dhigo ma yeelayno dowladnimadeena dib loo celiyo waxaan u soo marnay dhibaato badan waxaan u soo marnay maxaan ku idhaahdaa dhibaatooyin aad fara badan baan u soo marnay hadda aan saarnay waddadii inay naga leexiyaan ma yeelaysaan ma oggolaanaysaan dowlad dimuqraadiyadaan ahay waxaan rabnaa shacabku inay wax doortaan dowlad dimuqraadiyad baan nahay waxaan nahay dadka inaan u hoggaamino nabad iyo horumar inaan u hoggaamino oo aad biri soo doorataan laakiin mudaharaad aan sharciyeysnayn mudaharaad lagu burburinayo sharafka iyo sumcadda Soomaaliyeed mudaharaad ganacsatada looga burburinayo hantidooda ma yeelayno ma oggolaanayno waxaan ognahay argagixisada ku hoos jirta markii ay xoog wax nooga qaadi waayeen markii ciidamada qalabka sida ay bacsanayaan waxa uu haareeyo kaliya inay ku soo dhuntaan waa wiilasheenii way dadka kama naqaano laakiin wuxuu aaminsan yahay islaam ma wuxuu diidayaa waa dowladnimo wuxuu diidayaa waa qarannimo ma oggolaanaysaan dowladdaani waddadii caddeed ee cagta saartay mana soo noqonayso waa soconnay ummadda Soomaaliyeed way socotay horaan soconaynaa ma maqlaysaan horaan soconaynaa ummaddeena iyo shacabkeena u adeegaynaa nabad baanu keenaynaa nolol yaanu keenaynaa shaqooyin yaanu abuuraynaa sharafkeeda iyo karaamadeeda soo celinaynaa waxaan soo marnay waa ogtihiin qabiil iyo qabyaalad yaan been idinkugu sheegin dalleeyaysan been idinkugu sheegin waddankan burburkiisa waa arkaysaan burburkan wuxuu la soo gaaray oo Soomaaliya maanta meesha ay tala dhigay waa dallay siyaasadeed waa dad qabiilistayaal ah oo qabiil ku shaqaysta ma yeelaysaan imisa maanta qabiil looga dhimatay imisa qabiil oo Soomaali ku dhimatay maanta oo dhulka hoostiisa ku jira yaa magacyadooda yaqaana hooyadii gablanta kaliya taqaana bas waa lagu soo mooday annagu ma oggolaanayno wiilal Soomaaliyeed dhalinyaro ah gabdho Soomaaliyeed in noloshooda lagu ciyaaro mustaqbalkooda lagu ciyaaro waqti intuu naga lumi karo waa naga lumay mana oggolaanayno cid ku ciyaarta mustaqbalka ummadeenna iyo dadkeena dhalinyaradeenna waxaan idin ballan qaadaynaa oo Ilaahay hortiisa ciddii isku dayda inay hor istaagto qarnimada Soomaaliyeed dowladnimada Soomaaliyeed sharafka Soomaaliyeed wallahi gacnaha ayaan ku qabanaynaa wallahi baan idinku dhaartay ciduu raba ahaado waxaa ballan nagu ah oo Ilaahay inaan dowladnimadeena iyo dalkeenna ula tartamo caalamka wuxuuna kula tartami karaa hal arrin oo kaliya idinkoo dowladdiina taageera ma taageeraysaan dowladdiina ma istaageeraysaan idinkoo markii ma taageeraysaan nabad iyo nolol ma taageeraysaan